waxaan eegay nolosha abwaan hadraawi sidaad idinku u taqaanaan dadku soo yaqaanaan abwaan hadraawi nin maasooyinka sameeya gabya hadla anuu waxaan u aqaanaa mufakir nolol akhriye fiiriye ka warrame ka hadle dadka wax u sheege macallimiinta nolosha ka mid ahaa mudane hadraawi raxmatullaahi calayh bay igu soo booreen waxaan akhriyey la dhegaysta walaalahayo miskiidku waa inuu noolaado salaaddu waa inay noolaato si fiicanna ii dhegaysta waxaan akhriyey dowladda uu dhex fadhiyo ee nidaamka somalilan oo la weydiisanayo ma ka soo qayb galnaa geeridiisa iyo guddi weyn oo loo sameeyey oo geerida iyo aaska hadraawi iyo sida loo duugayo ka shaqayn doonta oo heer sare ah wasiiro madax culumo abwaano calankii wax weyn hadraawina uu ka sii gabiyay sida loo aasi doono allaalahayo sida ay aasa buuri aaskaygu macno ma leh waxaan idhi baa macno leh buuri aaskaygu macno ma leh waxaan inii sheegay iyaa macno leh igu soo booday anigoo buuqaa ka jira hadraawi fiirinaya bay aayaddii haddana dib igu soo noqotay innaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan laha linabluwahu nolosha waxa kor yaalla ilaahay baa le innaa wa annaka waxaan ka yeelnay nolosha waxa kor yaalla qurux waan qurxinnay markaad idinku dhex socotaan magaaladan aad degan tihiin halkan ilaa minnesota ilaa san paul meel kasta dhex socotaan markaad maraykan dhex socotaan ziinaad daawanaysaa daaro dhaadheer maaragtay dhul barwaaqo ah biyo baabuuro qurux badan dad labisan shirkado waaweyn oo cimlaaqa ziinatan laha dadku taabay la nooliyey laakiin hadraawi taa intuu dhaafay ayuu yidhi sideen u nool lahay su-aasha u fiirsaya hadraawi wuxuu isweydiiyey sideen u nool lahay su'aal kaluu keenay oo maxaan u nool lahayba su'aal saddexaad buu keenay iyaa inoo sheegaya sidaan u noolaan lahay marka hadraawi wuxuu soo maray 4 jaranjaro oo nolosha ka mid a hadraawi markuu yaraa nin ardaya caqli badan wax barta qur'aankana dhigtay dugsigii qur'aanka kadibna iskuulka aaday siduu sheegay aqoontii reer galbeedka cadan ku bartay wax badanna bartay ayuu ahaa nolosha caadigee dhallinyaradeennu ku nool yihiin buu ku noolaa buug iyo qalin buu sitay iskuulku aadayey uu soo noqonayay iskuulku aadayey adeerkii iyo tolkii buu la fadhiyey waxbay barayeen marxaladdaa markuu ka baxay su'aal baa dhalatay hadraawi wuxuu isweydiiyey noloshani maxay tahay hadraawi wuxuu noqday nin filosofo oo caqliga reer galbeed kale dadka wuxuu ka yidhi badow baa tihiina ilbaxa marxaladdaa buu soo maray marxaladdii uu garhka weyn samaystay garhka halkan ku jooga shanabta badan lahaa oo sida shakespeare iyo jean jacques rousseau iyo maaragtay filosofiyadii weynaa reer galbeedka iyuu u ekaaday u soo gooyey wuxuu yimiday 70-annadii dhammaadkiisii 80-annadii wuxuu ku biiray kacaankii maxamed siyaad barre raxmatullaahi calayh isaga raxmatullaahi calayh ku kacsanaa wuxuu aaminay horumarku inuu ku jiro inuu odaygani socdo soomaalina ku xidhuuda dictator uu kacay dadkii buu kiciyey gabay buu ku kiciyey snm buu ku biiray kayntuu tagay u soo laabmay waxaa abuurmay soomaalidan cusub ee laandka ah somaliland puntland jubbaland galland qabland danland alaba abuuratay hadraawi markuu soo laabmay wuxuu yimiday meeshii u dagaalamay iyakii baa isku dhacay kuwii somalilandka fadhiyey reerkii baa isku dhacay labadii daan baa isku dhacday uu eegayaa uu daawanayaa ma waxan baa u dagaalamaysay buuri waxaa u dagaalamaysay inay dadku islaayaan si uu fikiraya hadraawi iskama noola uun kuma jiro maaragtay sheer ma doonaya sheer lama taqaanaan ii biiri yaa ii gal
ما عطبان دونيا ما أنت إنما بهالله يصير ما سووا فكرة يا والسعودية هذا إنجليز كتري قحوتي بنقد سيدنا إنجليز كيسوا فديا لندن وجوري يسهر فديا أيون رش فيري تذكي جد كي مريان قف هواي كلام له هدراوي لما يقان سيد أديك لو أقول أنا قال لي أقول عدناكم مركي قرب مريان أو ديك هير أو بدارتها أو بورا أو ماشي صعدة برا معوية بلاد وحالها ما قال لي لكن مركي أن جيبوتي جوجان بارجيس جوجان برع جوجو أم بجوج مارت محن كل هذا بورا ما بان جوجو بوساسو شيخ بشير ضد بدن بي سلامي والله يقرني يا وحنا هدراوي والله يقارني wax yaqaan ma jirto cadaankii way marayaan wuxuu yiri waan istaabtay hadda u fiirsaya adoo wali isma taaban waan istaabtay waxaan idhi wuri horta ma jirtaan mise ma jirti odaygii hadraawi ee qiimiga lahaa ma tahay mise ma tihid waxaan ogaaday buu raxmatullaahi calayh inaan jirin physics waan jiraa jirahan waan jiraa aniga istaabanaya oday Descartes l'origine française Suisse land française asarkiisu yahay wuxuu yiri je pense donc je suis anu waan fikiraya idan waan jiraa markii hore wuxuu aaminay inuu la jirin laakiin markuu ogaaday inuu fikirayo buu ileen waan jiraa markaas wuxuu yiri odaygii filosofkeeni mufakirkeeni aqoonyahankeeni caalimkeeni soo caalim yahay waa inii sheegi doonaa wuxuu yiri ileen waan jiraa لكن ما جرتيدو waxaanad u jirin meeshaad fadhidaa qaldan subxaan allah ina london adiga oo aad dikartigi Soomaalida london ina fadhido waa qalad tahay iska soco qarar buu qaatay inuu soo laamo halka habeenku soo laamay qalin buu qaatay buugna uu qaatay qalin buu qaatay jeebkiina feeriye imse qof buu qalin ugu jiraa imse ruux baa qalin wata ayarna ma jiro qalin buu qaatay buugna uu la soo baxay wuxuu qoray gabayga maansada ugu dheer ee 800 oo bayda kaale adigu dhamay 800 oo bayd baydkii quraatana waa 10 laga qori karo kun kitaab anu markaan akhriyay aba aan dhageystay wuxuu bixiyay daba huwan alghaz talaasid nolol aan la fahmin lagu dhacdool yahayna wuxuu inoo soo diray markaa wixii ku jiray khibradiisa 70 sano uu noolaa imika inta uu dhaafay wuxuu khibrad lahaa buu inoo sheegay raxmatullaahi calayh markii hadraawi markii aan dhameeyay fikirka maqaal baan ka qoray saaka waxaan ku yiri waad dhooftay waad naga socotay dadkuna wali kuma fahmin waxay isku haystaa inay ku aasaan kuwa la diriireysay ee nacaysay baa isu ka diray inay ku aasaan ay aasaka ka qayb galaan laakiin kuwa jecelayd way ka fogyihiin kuma aasayaan kuwaasi waxa kugu dul ooyi doona kuwii 5 sano ee fadhiidka noqotay waxba ku qaban ku soo siyaaran cunto ku siin noloshaada ka warhayn gaarka ah in yar mooyaane iyo imika kugu buuqaya ilaahay u naxariisto filosofkii kale isaguna ka agdhawaa gaariya wuxuu yiri Soomaalidu waa aasi og Soomaalidu waa maxay waa aasi og sida qofka loo duuga yaqaanaan نمبا جاجا كل من بوري مالك بن النبي رحمه الله يا إبراهيم يا علي شريعتي نمبا جاجا ودماني وحال لو طلعوني جيل يلا قليل سجنا جاجدش جيل بالغو قالني إله إنه دي المدبر لي سيانو نولانو جيل عنو رحمة الله عليه إخواني في الله مركها لكها إن جيل يودي هدان الصوماليين هاي وحوقها من شن الرمود النوسيا intaas aan wajeeda koow wuxuu ahaa nin nolosha inoo maclinaya annagu nolosha ma fahmin wadaadkeena iyo waraleheennaba buugaan badan ma sidana kutubaan akhrina laakiin ma maclino nolosha hadraawi nolosha ayuu macneeyay sidee horumar loo gaadhaa
sidee muslim loo noqdaa sidee bini aadan loo noqdaa waa kow labo dhegaysta walaalay hadraawi wuxuu ahaa ninka isku dhisay soomaalinimada iyo islaamnimada ma jiro qofku ma noqonayo Soomaali dhaqankiisa haysta hadduu muslim dhab ahayn muslim dhabana Soomaali dhexdeeda kuma noqonaysid haddaad Soomaali ahayn labadaa isku keen wuxuu aaminsanaa dhaqanku waa diintu waa dhaqan aniga ha iga sheekeyntaa wax soo baratid anu dhaqankaan aqaanaa diinta may shaqada wadaadkaan u daayo waxa kama jiraan wadaadku u dhahdo anu wadaad baan ahay dhaqanka shaqo kuma lihi isna waxba kama jiraan hadraawi wuxuu jamciyey bayna الdiin والتراث الثقافة والفن الصحيح وسو كان صدح hadraawi رحمه الله wuxuu ahaa dadka yar saxaabadu waxay oran jireen allahumma ij'alni min alqaliil ilaahu dadka yar iga dhig inta yar buu ahaa oo inta yar inta badan wax u sheegta inta badan wax uma ogo shaqaysanayaan in yar baa dadka u fikirto wax u sheegta intaas ku jiro dadka yar buu ahaa abqari buu ahaa in yar waa milix nolosha milix bay ku yihiin dadka way dhex socdaan dadka waxaan ku dhahdaa qofku inuu dadka yar ku jiro maxaa ku kartaa afar arrimood kow had iyo jeer waxbuu akhriyaa laba wuxuu jecel yahay inuu keli u noolaado guriga fadhiyo wax akhriyo maktabad fadhiyo quraan akhristo miskiidka meel buu fadhiyaa xiinka iyo buuqa kuma dhex jiro wuxuu uga qayb galaa uun ka qayb gal ee maaha mid ku dhex jira maaha waa weyniday ka mid tahay waxaa lagu gartaa dadka markuu wax u sheegayo uu dhegaystaa markaa wax sheegaa idhegayso un maaha isaguna uu dhegaystaa wuxuu ahaa nin dhegtiisa anigu waxaan la fadhiistay aksar min 10 mara wuxuu dhegaysanayaa uu qoslayaa uu taahayaa uu ooyayaa uu calaacalayaa uu murugoonayaa uu gaajoonayaa fikir buu u gaajoonayaa waxaa sheegtay qalin buu qaadanayaa uu qoranayaa kule way ka maqnayd fikraddaasi cajiib buu ahaa arrinta afaraad wuxuu ahaa qof aan iibin cilmiga aqoonta lacag ma siisanin aqoontiisa halkaa iyo halkaa uma noolayn labada loo dhintay wuxuu u noolaa aqoontu u noolaa aqoon buu fikiriyey ka qaado aday kuu taallaa ha ka qaadan aday kuu taallaa dhegayso aday kuu taallaa ha dhegaysan aday kuu taallaa laakiin wuxuu ahaa nin aqoonta aanan gadan laa yashtaruuna biaayati illahi thamanan qaliilan shan muxuu ahaa waata ugu dambaysa in sheegayo wuxuu ahaa aqoonyahan islaami ah meeshuu ku dhammaaday cabdulwahaab masiiri masrigii cilmaaniga ah ee shuuciga ahaa ee islaamiga noqday meeshuu mustafa maxamuud ku dhammaaday cilmaani ishtiraaki ilaahay ma jiro islaami ku dhammaaday meesha uu ku dhammaaday doctor maxamed camaara uu ka soo bilaabay cilmaani islaami wuxuu ka soo bilaabay isaguna cilmaani wuxuu ku dhammaaday islaami muxuu ahaa markaa muxuu ahaa mufakir islaami ah xir buu noqday kadib xir mustafa xaaji ismaaciil iyo cali warsame iyo shuyuukhda weyn buu hoos dhigtay buugga iyo qalinka maxay sheegayaan wadaadadani dadku ka tageen ay wadaad u haystaan muxuu sheegayaa markaas buu qalinka buug sitay uu ka qoranay marka uu farxay waxaan doonaya baan ka helay markaas uu gabi ka sameeyay maasa ka sameeyay wax ayna wadaadu gaadhin buu garsinay shantaa shay buu ahaa ilaahay naxariistii jannaha siiyo تبارك وتعالى أقول ما سمعتموه فاستغفروا الله لي ولكم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدي وحبيبي محمد بن عبد الله وآله وصحبه وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى ولا ليال موتكو وإنه وذا سوية لكن لبشي هنكر فكرنا بعد الموت هل كان تغينا مركان دمانو قعنتي انكو جرتا إلهينا قعنتي انكو ردي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون halka aan tagayna anaka qarrayna ma janna tagna mise cadaab ilaahay xurriyad buu nasiye man shaa falyu'min wa man shaa falyakfur aday ku taala ta ka fikirin badan kayfa tamut sidoo u dhiman doontaa labo arinta labaad maxaad ka tagay
basmad nolosha kaga tag basmad waa kan hebel waxan buu ka tagay kelmaddaa buu ka tagay madrasadaasuu ka tagay dugsigaasuu ka tagay iskuulkaasuu ka tagay ceelkaas buu faqay waxa uu sameeyey dad buu wax baray ummad buu xoreeyey wax ka tag nolosha ha ku ahaanin marti mudane ka noqo hadraawi iskoolkiisu waa taa nolosha hadraawi wuxuu ka ahaa mudane marti kama ahayn ayaantuu wax fahmay mabaadi badan ha soo maro ilaa markuu go'ayay mudanu ahaa kun anta kadalik sidaa noqo mudane noqo ha ka sheekayn hadraawi cadiim buu ahaa laa shaka fii dalik hadraawi dadka o dhan uu ka duwanaa wuxuuna kaga duwanaa caqligiisaa dadka ka duwanaa dad ba ani ila soo hadlo dhada sheekh waxaan rabnaa inaad waxaa ka hadashay anigu ma fanaan baan ahay waxaan ka hadlayaa waxa ii sheegaya ilaahay iyo rasuulka iyo damiirkayga adigu ima sheegaysa sheekh waxaa ka hadal maxaan uga hadlay waxaad ka hadlay galad waxa aan ii sheega waa inay afar arrimood kula hadlaan waa inaad meeshaa ku nooshahay kula hadasho ku tira waxa ka hadal dadku waa inay kula hadlaan noloshoodu ku tira waxa ka hadal waa inay diintu kula hadasho waxa ka hadal ugu dambeynna waa inay kula hadasho wax muhiim waa maxay waa inuu kula hadlo waxa la yiraahdo mas'uuliyadu responsibility qof mas'uul noqo marka inta aad noqotid dad ka duwanaysa say dadku u sheekeeyaan say dadku u hadlaan say dadku u gabyaan say dadku wax u qoraan say dadku u nool yihiin uma noolanaysa si ka duwan baad u noqonaysaa lianna waxaad rabtaa inaad dadka ta'siirisid dadku waxay ku dhahayaan uu waalan yahay oo nabi maxamed baa lagu yidhi innaka la majnuun dadku waxay ku dhahayaan ninkan suu u hadlaa horta muxuu ka sheekayaa ولذلك وحان كو إرساك هدراوي الذين يدفنونك لا يفهمونك كو كؤاسا يأكو دوغيا كو ما فهمسه هدراوي ومحررتي حبك ما قرني كؤاسا يا هدراوي وحوري بركو دبهو المعنين وحوري واروح ان قرو هبينا كسو جيدا نفتها يقبح لا إني كان دالو او بالفهمه وحا ان قرو نفتها يقبحدو إنكو قاد عنيو او عياريا إنا دغيشتان maaha إنكو إندها كلا هيو وحن محود يهيله مفكر كي هو يناي عالم كجزائر مالك بن نبي وحود انت يسووا لا وراقد وكو قروح قاجة درادين مفكر ما الجزائر وحدين مفكر الجزائر وكل حاجة قاجة وكل حاجة انت قوري سي ويسووا لها وبار ولا ايبي خمري قالوا عبايمك قاجة قبل دي سبا اسكيبس وين ولان كريم ومفكر كي هو الجزائر لماذا؟ لأن الناس waxay qiimeeyaan mowdka geeriday qiimeeyaan qofku markuu dhinto aasi og ka waxaan rabnaa inaan nolosha labadaa ka fahno sideed u dhimani maxaad ka tagi maxaad ka tagi maxaad ka tagi noocyadaa weeyaan taasina waxay u baahan tahay dadku waa saddex dad iska nool hamel way kathiir min annaas waa hamel way iskacaan way seexdaan way dhalaan way guursadaan way shaqo tagaan way soo rawaxaan iska nool yihiin نبي كوا وحول وسط ضميرة هبين كينا وهردان دراتينا السوق كقيريان وضميره كله الله بقول الله بعد ومحي ويفي عيهين لكن قرقوا كما دافان عيالكو ملعامة كينا دوكسيكا قرآنكو كينا قادو كدعا وسوء العقب وسوء الرياء وسوء النقضاء وقاضة كورا بقرآنك محفزتين ها الحمد لله ويبقوا لستي هاي كالي أقل فريستان بريتو هلو سوء النقضاء انت بكم قرآن كاي عيال كاي ريو فرحان بويا هاي قولوا صدح هذا ومحي noloshaa dhibaysa noloshaan ku noolahay wallaahi billaahi ma seexanaysa way ku dhibaysaa noloshaa ku dhibaysa dadku si u noolyihiin baa ku dhibaysaa halkee loo socdaa baa ku dhibaysaa markaad maqashid yurub baa la yimid maraykanaa la yimid maxaa loo yimid la garan laayay markaad aragtid waddankeeni se loogu nool yahay noloshaa ku dhibaysa dad noloshaa dhibaysa kuwa baa nolosha sameeya walaalahayo markaa kun saanican lilxayaat walaa takun masnuucan mid la sameeya ha noqonin mid nolosha sameeya noqo لا تكن متفرجا من سبكتاتر سكو بدل لو داوده يا فيلمها يا روايلها هنقون قف نولش يسقو سميه نقو كوا لا داوانيو نقو هنقونين كوا وحون دغيستا نقو كوا نولش wax ku soo dara dhageysta wax ku dara nolosha la tafaacul hanoqonin kuwa dadka bini aadanka ka sheekeeya
waxaad noqotaa kuwa dadka bini aadamka wanaagsan wax la qabta ha noqonin kuwa noloshooda xumeeya ee cayda iyo balaada ka shaqeeya noqo qof nolosha dadka qosol u geliya dadku inay qoslaan ay farxaan ka qayb gal ha noqonin mushkilad noqo xal ha noqonin problem ha noqonin noqo xal ha noqonin xaasida qofka fiican noqo garab gale qofka wanaagsan isgarab taagan maxaad iga rabtaa maxaan qaban karaa halkee nolosha ka galaa tartanka gal nolosha waa tartan sharaf ku gal nolosha tartanka ha ku gelin hebel baa iga badiyey maaha gal tartanka sharaf ku gal wafii dalika falyatanafas ilmutanaafisuun saabiquu saaricuu gal ugu dambayn ka fikir beri markaad dhimatid lagu dhigo gurigii ugu dambeeyey laguu soo duceeye lagaa yimaado qabriga waxa kula fadhinaya ka fikir waxaa kula hadhaya camalkaa qurxi oo nolosha ha kaaga yimaado ziyaaro ha kugu yimaado camalkaasi ha kugu yimaado isagoo qurux badan nabigeenni ku saliya walaalayaal ilaaha weyn baa inagu amray inaan ku salino calayhi salaatu wasalaam ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasallimuu tasliima اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورتن مركها نبيك كصلي على العمارة ومحي وواجب meelahan wadaadadan anuu kan mid ah wahabiyiinta waxaan barnay inaad nabiga ku sallim karado allahumma salli wa sallim mubarak alayhi hoos ugu dhacdo dorsi ku salli nabigaaga ay waasi ka tahay aynu xubbu rasuul marka ikhwaani fillah waxyaaladan ku arkay yurub iyo mareykan iyo kanada markaan imiday dad nabigii laga hadlayo aamusan meeshaan uga mid meel afka ninkii nabiga ma la sukin diray ma dagaal baa inaga dhaxay ninkii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ma ya anaka nabigu waa kan waxa aan nahay naga dhigay cadamada aan leenahay raganimada aan leenahay ilaahay dabadii nabiga nasiya alayhi salaam laqad kana mu'adi uraaka maxayd ilaahay uu ka waramayay subhanahu wa ta'ala في نهاية سورة يونس ما هي حسوسي حفظتي معاها مارتي وحن صدرنا حريص عليكم بالمؤمنين معاها رؤوف رحيم يا سورة التوبة حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم نبينا أنك نفتنا ونرجع عليه عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ورضي الله عن الصحابة جميعا والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارحم أمواتنا في كل مكان اللهم ارحم أموات المسلمين في كل مكان اللهم ارحم أستاذنا هدراوي رحمة الله تبارك وتعالى عليه اللهم اغفر ذنبه وكفر عن سيئاته وتوفه مع الأبرار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر